مدن قدومية كحجين مدن عيال سلامة إسلام كبعدي وحبذن وأن هري وقبي بران نجيستي سوجيدينتي سيدي تيلس كاهيد معرفتي هل كان هري وقتري وزيرة خديجة محمد ديرية ورثايان لقباه ووحبذن وأي قادات دكتي لكن مركا ليسوي ماذا نظامكي ولي 4.5 أو تاجن ولو بقول تضباطن يشن كراستنا يقبسن تهاي حدي صدن يكو شلي باريه أيها كوها حل أما معركتي اللي قولي هذين وأنا الحق أهين هذا الدورشة حلال هذا أنت مدع الله به وأن حق درنا ماشي كمرنين أنا أقولي وها كفوس إلهية سيدي إسوافق كرام حق درو يدورش حلال إلا نهاري حق لمرة حلال الرواد حلقين لما هاي حقين لما هايو horta wax ummadda Soomaaliyeed ee dadka la isku geeyay inta soo beelooba ee 31 loo dhaxaysiiyay haddana hadii tira ayaga la xisaabi lahaa ay ka badnaan lahaayeen saan aaminsanahay boqolkiiba 90 dadka hadda beelaha ee dhameystiran ee 61 la siiyay haddana in meeshoodii lagu sii hayo magacyo fiican haddana loogu yeero horta laba isqabata maaha tii beerdhaweyd cudur daar baa loo sameeyay waxa la yiri xaq lama rabee xal baa la rabaa haddii maantana la leeyahay doorasho xor iyo xalaal haddana sideebay isla halkii shalay xaq darradii iyo wax aanan xalaal ahayn ee dastuuriyan ay u noqonayaan oo ila abad inay sidaas ay ku ahaadaan beelo Soomaaliyeed ee ka tira badan intii la doono ka baaxad weyn dhulka ay degan yihiin resource-ka ay haystaan 3 jeer ku soo laabmayo kuwa hadda ku helay qalinka ee ahaa hal baa la rabaa xaq lama rabo in haddana loogu xalaaleeyo dastuuriyan looga dhigo inay sii shaqayso ila al-abad bagartaya waa in dastuuriyan aan laga dhigin qodobkan beerdhaweyd gentleman agreement buu ahaa wadanka oo qalalaasa ku jiro ayaa lagu saleysiyay wax dastuuri ama aan wahayn haddana waxaad moodaa in laga dhigo qodob dastuuri ah in beelo Soomaaliyeed ee doodka nabi aadam ku kulmayo in ayaga la isku hayo oo la siiyo had iyo jeer inay ahaadaan bulshada dadka hooseeya nus ah wahada la yajuus ilaahayna hortiisa kuma banaana walidhakari mithla hadhi al-unthayayn ilaahay quraankiisa ma una dhihin ma aragtay dadka ma aragtay ama saasheegaya qaylada iyo cadayska badan ayay laba jeer baatay ka sii baatay xaq mudan yihiin dadka kale ee maartay the silent majority ah arintaasi aniga waxaan ka qaba concern in aanan dastuurka lagu qori karin 275 awood qaybsiga inuu noqdo 31 shalay iyo 61 beelaha kale waa in haddii doorasho ayada one man one vote ay tahay reer waliba ha is ogaado tiradiisa kiilaandheera iyo kiilaanqaaba waa la ogaanayaa laakiin iyaanan lagu dastuuraynin wax in cadays lagu sameeyay awood qaybsi oo jaantaar rugan ay ahay ee dad meel iskugu tagay qoryo haysta ay soo dejiyeen taay wixii ka dambeeyay doorashada way sacadahay Soomaaliya meel maanta inta la baxo sanduuq la dhigan karo oo awoodeeda maanta ninkii shalay yiri ma tahay maanta ayagoo rag yadana taagan inuu asaga lagu doorto si xalaal ah oo ku soo baxo codkiisa way adag tahay haweenka Soomaaliyeed waa jecelnahay waa walaalahayna maalin walba ayaga hadalhayntooda kootadooda la yiraahdaa war ummadda Ilaahay abuuray rag ayaga laga sameeyay miska laga dhigay kootadooda ayagoo niman rag oo Ilaahay aan miska dhigin ayaa iyagii laga soo simay waxaan waa western idea and we are not going to accept ma aha wax islaam iyo diin iyo wax ku qatanto waa wax la soo minguuriyay ee laga keenayo wadamada kama jiraan wax anaga ay sheegayaan ahsaata tirada ay badan ay sheegayaan wadamada kama jiraan saddex xisbi bay leedahay Ingiriiska waa naqaan Labour Conservative iyo wixii kala mid ah Mareykanka waa ognahay Democratic iyo Republic uu leeyahay anaga 9 xisbi ee meeshan la wado ee nin walba hal reer kaliya ayaa wuxuu leeyahay 6 xisbi ma gartay yaa way nidaam afay shalay waa dadkiina laga qariin maanta lagu celinaya la yumdadu maratayn fi juhdin waahid ninka muuminka ah
marka waxaan rabnaa dastuurkan in annaga loo saldhigo xataa annaga guddiga doorashooyinka xataa dadku ma lihin mugase iskaba dhaaf wax kale hada laa yajuz maaha wax soomaalinimo ee lagu qancin karo waxyaabaha lala soo hordhigayo ee maalin weyn haddana annagoo noola soo jeedno oo soo taagan inala cuno ma ogolaan karno dastuurkan waa in lagu salaysiiyaa ama mid muslim ha noqdo ama mid gaal ha noqdo wuxuu yahay waa garan waanahay